السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod wanaagsan daawadayaal waa Ustaad Cabdirasaaq Yacquub channel. wali waxaynu ku dhex jirnaa barashadii koorsada QuickBook. maanta casharkeena sideedaad waxaynu ku soo qaadan doonaa Enter Sales Receipt. waa habka lacago kaash ah oo wax lagaga iibsaday aad u xareysan lahayd. casharkeeni toddobaad ee hore waxaynu ku soo qaadanay habka loo xareeyo deynta ama qofka deynta ka qabo saad u xareysan lahayd lacagihii uu ka qabay. maanta waa lacago kaash ah oo aad qof wax kaga iibisay ama macmiil aad wax kaga iibisay qaabkii aad u xareysan lahayd. waayahay si aan u xareysano waxaynu tegaynaa isla meeshii aynu invoiceska ku diyaarin jirnay oo ah customers. halkan customer la yiraahdo ayaynu tegaynaa. customers markaad tagto waxaad ka dooranaysaa Enter Sales Receipt. Enter Sales Receipt ayaynu dooranaynaa. waa Enter Sales Receipt. waayahay waa halkan aad u jeedaan Enter Sales Receipt. Enter Sales Receipt markaad gasho waxaad ka sii galaysaa Enter Sales Receipt ayaynu galnay. halkan waxaad ku qoraysaa macmiilka wax ka iibsaday magaciisa. haddii uu yahay macmiil hore kugu keedsanaa halkan fur ka doora meeshan Ibrahim Aadan Xali oo kale. hadda waa macmiil hore noogu keedsanaa. hadduusan keedsaneen ama uusan ku jirin macmiilkaas nidaamka waxaad maraysaa add new inaad mid cusub ku darsato. laakiin hadda waxaynu dooranaynaa Ibrahim Aadan Xali. aynu aragna mar Ibrahim ayaan wax ka iibinaynaa oo cash. haddana waan ku darsan doonaa midka newga midka cusub. Ibrahim ayaan wax ka iibinaynaa item shayga uu ka iibsanayo. shalay invoice-ka muxuu ahaa? invoice-ka inta shalay waxa ku jiray qaybtan ama casharkeeni toddobaad waxa ku jiray quantity tirada ayaa ku jirtay. laakiin hadda markuu receipt yahay wuxuu ka bilaabanayaa itemkiiba. waaya mobile phone ayuu iibsaday macmiilkan. mobile phone tirada uu iibsaday quantity halkan ayay taallaa hadda. quantity saad u jeedaan aynu soo zoom garaysano. inta itemkii aad ku qoraysaa halkan waxaad gelinaysaa tirada uu ka qaatay xabadkii intuu ku fadhiyo total isaga ayaa soo baxaya. hadda saad u jeedaan 165 waa qiimaha aan iibinayno. marka si aan ugu darsano tirada halkan waxaad ku qoraysaa labo ayuu qaatay, labo phone, labo mobile. saad u jeedaan 165 ayaa la iibiyaa halkii mobile. maadaama uu laba xabo qaatay ninkan macmiilka Ibrahim ah 330 lacag ah ayaa laga hayaa. waayahay haddii aad save garaynayso save and close iyo save and new ayuu leeyahay. marka macaamiil badan haddaad xareynayso save and new ayaad leedahay si mid cusub uu kugu soo baxo. haddii aad rabto inaad xareyso keliya midkan hadda kugu dooran save and close ayaad leedahay. wuuna kuu xareysmaya wuuna xirmaya dialog boxkii. save and new aan dhahno si aan u aragno sida macmiil cusub wax looga iibiyo. save and new ayaynu dhahnay. save and new markaad dhahdo page-kii plankiga ahaa ayaa soo baxay. halkan customer job waxaad ku qori kartaa magaca qofka macmiilka ah. waxaan dhahnay tusaale ahaan Xasan ayaynu dhahnay. Xasan waa macmiil cusub Xasan la yiraahdo. markaad halkan item timaado wuxuu ku leeyahay Xasan is not in the customer job. aynu soo dhaweysano zoom. wuxuu leeyahay Xasan ma aha macmiishaada kugu jira job listiga ama qaybtan shaqada kugu jira ma aha. ma ku daraysaa quick add iyo set up iyo cancel ayuu soo dhigay. haddii quick add aad dhahdo waa uma baahni telefoonadiisa iyo waxyaabahaas macluumaadkiisa uma baahni kaliya isaga dar. sadab haddaad dhahdana wuxuu ku geenayaa meeshii telefoonada iyo waxyaabihii invoice customerka la soo xareysanay customeradii casharkii hore aynu soo qaadanay. nidaamkii oo kale ayuu ku marsinayaa magaciisa halka laga helo emailadiisa telefoonadiisa wixii oo dhan ayaad ku qoraysaa marka sadab haddaad dhahdo. laakiin haddii uu yahay macmiil markaas aad wax kala iibsateen oo isagana dantiisa sii raaxanaya quick add ayaad leedahay. waaya quick add ayaanu dooranaynaa hadda maadaama aynu soo aragnay sida customer loogu soo daro casharadii hore ayaynu ku soo aragnay. marka hadda quick add ayaanu leenahay. quick add markaad dhahdo halkan imow intii hadaaya mar itemkii ka doora halkan laptop ayaanu dooranay. tirada 3 xabo ayuu qaatay. ala xabad waa 380 tusaale ahaan 1140. save and close aynu doorana marka. save and close markaynu doorano waka sidaas ayuu ugu darsamay. waayahay aynu aragna marka halkii dhaqdhaqaaqa aynu ka fiirin jirnay xisaabaadka iyo waxyaabaha aan sameeyno. waxaynu sheegnay casharkeena toddobaad in aad ka geli kartid qaybta reports ayaynu gelaynaa. report markaad gasho company and financial ayaad dooranaysaa. kadibna waxaad kasii dooranaysaa balance sheet standard. balance sheet waa halka aad kala soconayso dhaqdhaqaaqa ganacsigaaga. balance sheet ayaanu dooranay. waxaad arkaysaa hadda
aynu soo dhaweysano marka hore waxaad arkaysaa account receivable waa 530 waa 10 toddobaad deyntii uu qabay ninka la yiraahdo Ibrahim halkan undeposited funds ayaa taala undeposited funds waa 1470 oo ah labadii macmiil ee aan had wax ka iibinay lacagahoodii ma xareysna lama xareynin laakiin waxay yaalan waa undeposited qaabka loo deposit gareeyana waynu arki doonaa lacagaha aan la xareyn oo aan qasnada u gudbin ama bangigii ganacsiga ama xaruntaada bangigeeda aanan u gudbin bangigana kulay waynu arki doonaa sida bangi loo abuurto oo qasnadii waxa sameeysanaysa lacagaha aad gashan jirtay marka waa tusaale hadaan soo qaadano qofka macmiil hadda qofka ganacsadaha ah markuu ganacsiga sameynayo wax buu iibiyaa waxaas uu iibiyay isla markii kaasafoortada kuma xareeyo meel ayuu dhigtaa haddii hawsha ay socoto meeshaas uu dhigtay lacagihii uu sii dhiganaya hadhow markuu fursad u helo ayuu wuxuu ku xareynayaa kaasafoortadii Soomaa taas waa tusaale markan waxa waaye hadda lacagihii undeposited waaye meesha yaalan qaybtii hoose ama qaanadii ayuu isaga jirtaa marka uu hawshiisa dhameysto kagama tagay qaanada wuxuu geenayaa kaasafoortadii Soomaa marka saas oo kale qasnadii in loo gudbiyo ay u baahan yihiin habka qasnada loogu gudbiyana waynu arki doonaa haduu Ilaahay yiraahdo inta waa undeposited funds lacagaha la iibiyay laakiin se aan qasnada ana dukaankaas aan lagu ridin waa ee taala banaanka qofkii haduu iibiyay marka intaas waa intan qaabka loo xareeyana insha Allah casharada soo socda ayaanu ku baran doonaa casharkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay asxaabteena hore waxaanu leenahay waad ku mahadsantiin daawashadiina asxaabtana ugu cusubna waxaanu ka codsanaynaa inay page-ka subscribe saaraan ayna la wadaagaan asxaabtooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh